kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warar wixii ugu dambeeyay xilligan ka taagan caalamka iyo sidoo kale guud ahaan bariga dhexe halkan waa stuudiyaheena magaalada Muqdisho taariikhda daawadayaal waxa ay ku beegan tahay 15 November 2024 waa jimco inta barnaamijka aynu ku gudjino qodobada daawan doontaan waxa ka mid noqon doona kooxda Saraya al-Quds waxa ay baahisay mid kamid ah maxaabiista Israa'iil ay gacanta ay ku hayso kaasi oo ka dalbanaya xukuumadda iyo sidoo kale mucaaradka Israa'iil in sida ugu dhaqsiyaha badan loo badbaadiyo barnaamijka ayaan idinku ugu soo gudbin doonaa sidoo kale waxyaabaha kala daawan doontaan waxa ka mid noqon doona laba kamid ah oo uu hogaamiye sare oo ka tirsan Hamas oo iyagu ku jiray xabsiyada Israa'iil waa ay geeriyoodeen maanta ayaa la baahiyay warkaasi waan idin soo gudbin doonaa warbixin Al Jazeera ay arrimahaasi ka daabacday sidoo kale waxyaabaha kala daawan doontaan waxa ka mid noqon doona dagaalo qaraar oo laga soo sheegayo deegaanada dhinaca Jabaliya iyo sidoo kale koonfurta wadanka Lebanon kooxaha hubeysan ee Falastiiniyiinta Hamas iyo sidoo kale kooxda Kataib al-Qassam ayaa wali waxa ay yihiin kuwa dagaal culus kula jira ciidamada Israa'iil waxa ay soo bandhigayaan muuqaalo iyo sidoo kale sawiro dhibaato iyo sidoo kale baaba loogu geysanayo ciidamada Israa'iil deegaanadaasi barnaamijka qodobada kala daawan doontaan waxa ka mid noqon doona goobta qadka cagaaran ee loo calaamadeeyay Gaza iyo sidoo kale Lebanon dibadbaxyaal fara badan oo Falastiiniyiin ayaa isugu soo baxay kuwaasi oo diidan gumaadka ay Israa'iil ay ku hayso shacabka reer Falastiin barnaamijka ayaad ku daawan doontaan sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa warar ku saabsan waxa soconaya isku day la doonayo in lagu dejiyo xiisada ka taagan koonfurta Lebanon ka oo ay dawladda Lebanon hadda laga dhaadhicinayo in ay garwadeen iyo sidoo kale ba ay Israa'iil ay kala hadasho in la joojiyo dagaaladaasi barnaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobadaas iyo sidoo kale waxyaabihii kale ugu soo kordhay ayaan idinku ugu soo gudbin doonaa barnaamijkeeni wixii aragti iyo fikir yaaraad waxaan ugu wadaagi doontaan qaybta hoose faalada ama commentiga adigoo ka soo aragtay dhiiban doona warbixinada goordhow inoo bixi doona fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir si aad u hesho macluumaadka iyo barnaamijyada halkan aynu ka tabino waa hagaag waxaanu ku hormari doonaa kooxda Saraya al-Quds ayaa waxa ay 24 saac la soo dhaafay gudahoodii ay ku baahinaysaa fariin kale oo labaad oo ka timid mid kamid ah maxaabiista Israa'iil ay kooxdaasi gacanta ay ku hayso ninkan ayaa waxa uu ka dalbaday xukuumadda ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo sidoo kale hogaamiyaasha mucaaradka iyo siyaasiyiinta Israa'iil in lagu dadaalo sidii loo soo samata bixin lahaa si uu qoyskiisii ula midoobo ninkan waxa uu ku calaacalayay in uu ka doonayo madaxda Israa'iil in ay soo badbaadiyaan haddii kale noloshiisii qatar ay ugu jirto oo ay kooxdan ay ka taqallusi doonto kanaalka Al Jazeera ayaa waxa uu baahiyay muuqaal ay Saraya al-Quds ay duubtay kuwaasi oo ay ku soo bandhigeen muuqaal cusub oo qof kale oo Israa'iil ah oo gacanta ugu jira ninkan waxa lagu magacaabaa Alexander Torbanov waxaana uu ugu yeeray hogaamiyaha xisbiga Shas Eri Derci iyo sidoo kale xukuumadda ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu in sida ugu dhaqsiyaha badan loo badbaadiyo si qoyskiisa uu la midoobo Torbanov waxa uu xukuumadda Israa'iil uu hogaamiyo Benjamin Netanyahu uu ku sheegay in ay iska ilowdayba maxaabiista gacanta ugu jirta kooxda Hamas hadda waxaan ugu baaqayaa ayuu yiri hogaamiyaasha iyo siyaasiyiinta mucaaradka in dhankoodii ay ka shaqeeyaan sidii xukuumadda cadaadis loogu saari lahaa in ay ogolaato wax waliba oo ay kooxaha hubeysan ee shuruuda oo ay wataan si naftoodii loo soo badbaadiyo ninkan sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in ay xukuumadda Israa'iil Netanyahu ay ku mashquushay oo kaliya baabi'inta shacabka iyo sidoo kale howlaha iyadu quseeya waxa ninkan oo 28 jir ah uu shaaca ka qaaday in uu doonayo in uu arko siyaasiyiinta mucaaradka ee Israa'iil iyaga oo ka shaqeynaya sidii ay u soo deyn lahaayeen maxaabiista tirada badan ee gacanta ugu jirta kooxda Hamas sidoo kale waxa hadaladiisii kamid ahaa ninkan waxaan ugu baaqayaa Yusuf oo isagu ah hogaamiyaha ruuxiga ee xisbiga Shasha waa ninka lagu magacaabo Ofadiya Yusuf in uu ka gacan siiyo sidii gacantiisa ama gacanta looga soo saari lahaa kooxaha hubeysan ee Falastiiniyiinta sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in ay qaataan mas'uuliyad taariikhda ay xusi doonto siyaasiyiinta mucaaradka ee Israa'iil si loo sii daayo maxaabiista uu ninkaasi isaga muuqaalkiisa la baahiyay oo ku jiro waxa uu sidoo kale uu ka hadlay wadciga adag ay hadda ay ku nool yihiin maxaabiista lagu haysto magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin
waxa uu yidhi sanad ayaa laga joogaa, hadda waxaan ku dhownahay in gebi ahaanba nala iloobo in aan nool nahay amaba aan geeriyoonay. sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday hadda dagaalada waxa ay u wacdeen ayuu yidhi in ay Lubnaan ay afka ay aadiyeen ciidamada Israa'iil oo waxa ay hadda ay ka sii jeesanayaan in maxaabiis ay uga maqan yihiin gudaha magaalada Gaza. sidoo kale ninkan ayaa hadalkiisii waxa uu ku soo gabagabeeyay maalin waliba waxaan la kulannaa khatar weyn oo dhinaca duqeymaha diiradaha Israa'iil iyo khatar kale oo ay kooxdan aynu nagu hayaan. sidoo kale waxa uu xaqiijiyay inaysan halkani ka soconaynin oo uu la jeeday magaalada Gaza maslaxad Israa'iil ay wadato, balse laga shaqeeyo ayuu yidhi waxyaabaha kooxdan hubeysan ay wataan in sida ugu dhaqsiyaha badan looga jawaabo. Saraya al-Qudus ayaa 2 maalin ka hor waxa ay baahisay nin kale oo isagu ka mid ah maxaabiista Israa'iil, kaasi oo isagu sheegaya in uu ka doonayo xukuumadda Israa'iil ee ra'iisul wasaare Netanyahu inay ka shaqeyso inay u soo jeesato sidii loo soo bixi lahaa dadka la haysta ee gacanta ugu jira kooxda Hamas iyo sidoo kale kooxaha ka barbar dagaalamaya. bishii July ee la soo dhaafay waxaa soo muuqday Abu Hamza oo isagu ah afayeenka military ee kooxda Saraya al-Qudus. waxa uu sheegay tiro ka mid ah dadka la haysta ee Israa'iil ee Gaza lagu haysto in ay qaarkood ay naftooda ay isku dayeen xitaa in ay isdaldalaan ama ay isqaarijiyaan. natiijadaasi waxa ay ka dhalatay ayaa la yidhi in xukuumaddii ay iska indhatirtay ama badhagihii ay ka laabatay in dadkaasi baaqyada ka imaanaya loo hoggaansamo amaba laga jawaabo. sidoo kale bartamihii bishii aynu soo dhaafnay xisbiga Shaash waxa uu yahay xisbi diini ah oo xukuumadda Netanyahu wax la qaybsada. waqtigani lagu guda jiro waxa ay ku baaqeen ayaa la yidhi in sida ugu dhaqsiyaha badan loo saxiixo heshiiska maxaabiis isweydaarsiga ee Israa'iil iyo sidoo kale kooxaha hubeysan ee Falastiiniyiinta u dhaxeeya. kooxda Saraya al-Qudus dhowr jeer ayay sidaan oo kale waxa ay u tabisay muuqaalo ay ka soo duubtay kooxaha ama balahaystayaasha gacanta ugu jira kooxda Hamas iyada iyo sidoo kale kooxda Kataib al-Qassam oo dhowr jeer iyaduna tabisay muuqaalo laga soo duubay kooxahan ama balahaystayaasha gacanta ugu jira kooxaha hubeysan ee Falastiiniyiinta. 7 Oktoobar 2023 kooxda muqaawamada Falastiin ee Hamas ayaa weerar xoogan waxa ay ku qaaday deegaanada dhinaca koonfurta Israa'iil. halkaas waxa ay ka soo qafaasheen ilaa 240 qof oo Israa'iiliyiin ah iyo kuwo kale oo dhalasho Mareykan watay. qaarkood inkastoo heshiis xabad joojin iyo maxaabiis isweydaarsi lagu sii daayay kala hore, balse hadda waxaa la leeyahay ilaa iyo ku dhawaad 100 qof oo leesayaashaasi ayaa weli gacanta ugu jira kooxda Hamas. waxaana jirta ayaa la leeyahay qaarkood in ay ku geeriyoodeen ama ay ku baxeen duqeymaha ay Israa'iil ay ka wado magaalada Gaza ee indhala'aanta ah. daawadayaal aragtidaada waxaan ugula wadaagi doontaa qaybta hoose ee faalada ama commentiga sidee ayaad u aragtaa muuqaalada hadda ay baahinayaan kooxaha hubeysan ee Falastiiniyiinta waxyaabaha ka dambeeyay iyo sidoo kale leesayaashan iyo baaqyada ay u jeedinayaan ma noqon doontaa kuwa ay ka soo jawaabaan hogaamiyaasha mucaaradka iyo sidoo kale dowladda Israa'iil gaar ahaan xukuumadda ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu. arrimihii Falastiin ayaynu ku guda jirnay 2 ka mid ah maxaabiistii gacanta ugu jirtay Israa'iil ay ku xirnaa xabsiyada Israa'iil oo mid ka mid ah uu ahaa sarkaal muhiim u ahaa kooxda Hamas ayaa ku geeriyooday xabsiyadii ay ku jireen ee dhinaca Israa'iil. 2 qof oo Falastiiniyiin ayaa ku geeriyootay xabsiyada Israa'iil. waxaa ku jira sarkaal sare oo Hamas ka tirsanaa kaasi oo lagu magacaabo Samiix Alawi. waxaa laga soo qabtay magaalada Nablus ee dhinaca daanta galbeed. waxaana geeriyooday sidoo kale Anwar Aslim oo isaguna laga soo qabtay magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin. hay-adda dhinaca iyo dadka la haysta ee Falastiin xuquuqdooda u dooda ayaa waxa ay shaaci ka qaaday in sarkaalka sare ee Hamas ka tirsanaa ee xabsiga Israa'iil ku geeriyooday lagu magacaabo Alawi 61 jir ayuu ahaa. waxaana jirta ayaa la yidhi in Israa'iil ay ka madax adeegtay in ay siiso waxyaabo uu u baahnaa oo dhinaca caafimaadkiisa quseeyay. sidoo kale 6 bishan aynu ku guda jirno waxaa geeriyooday ayaa la yidhi sidoo kale qof kale oo ka mid ahaa dadkii lala xiray ninkaasi Anwar Aslim, kaasi oo la tilmaamayo in uu maalintii Khamiista uu ku geeriyooday xabsi oo ku yaalay gudaha Israa'iil. xaaladiisii wadciga dhinaca caafimaad ayaa ninkaasi xumaatay kadibna waa uu geeriyooday. maanta Al Jazeera waxa ay baahisay sawirada labadaasi maxaabiis
waxaanay ku tilmaamtay mid ka mid ah in uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Xamaas. tafaasiil dheeraada ma jirto oo ay ka bixiyeen taliska dhinaca iyo ciidanka Israa'iil maxaabiistan ku geeriyootay xabsiyadoodii. waxay daawadayaal warbixino kale ayaa inoo soo socda oo aad goordhow daawan doontaan, balse waxaa kasoo hormari doona qadar yar oo xayeysiisa. ma ku daashay inaad ku noolaato apartment? ma rajaynaysaa inaad ka hayaanto qurbaha oo aad degto magaalada Nairobi? ma tahay aroos cusub oo doonaya inay gataan gurigii riyadooda? ma haysataa caruur badan oo aad la jeceshahay inaad ku noolaadaan guri iyaga u gaara iyo weliba goob ammaan ah? waxaan ku haynaa guri aad gadan karto oo ka kooban 7 qol. 5 qol waxa ay ku yaalaan xagga hore, halka 2 qolna ay ku yaalaan xagga dambe, iyaga oo leh musquladooda ama suuliyaashooda gaarka ah, isla markaana si gooni ah loo soo gali karo. labadaas qol marka aad gurigan gadato waad kireyn kartaa ama waxaad ka dhigan kartaa meel ay martidu ku seexato. gurigan waxa uu ku yaalaa goob ammaan ah, waxaa hormara laami, xaafadda uu ku yaalaana waa Nasra Gardens. haddii aad raadinaysay guri, waan hubaa inuu kani noqonayo gurigaagii riyada. haddii aad danaynayso gurigan inaad la xidhiidho dadka gadaya ama beecinaya, waxa aad kala xiriiri kartaa telefoonka shaashada kaaga muuqda. qiimaha waad la gorgortami kartaa, waana mid macquul ah oo ku qancinaya. waayaga daawadayaal qadarkaasi yare xayeysiin haddii halkaasi aynu ku dhaafno, markan waxaynu eegi doonaa warar soo baxaya ayaa muujinaya in uu soconayo dadaalo ku saabsan in dowladda Iiraan ay hadda ka fikirayso sidii ay dowladda Lebanon ugu qancin lahayd inay qaataan wada hadal oo ay qaramada midoobay xitaa garwadeyn ay ka noqon doonto sidii loo joojin lahaa dagaalada Israa'iil ee ka wado dhinaca iyo koonfurta wadankaasi Lebanon. horey waxa ay u soo bandhigtay Israa'iil in ay joojin doonto dagaaladaasi, balse kooxda Xisbullah waxa ay tilmaamtay in arrimaha quseeya dhinaca siyaasadda iyo sidoo kale diblomaasiyadaba ay tahay mid dowladda Lebanon lala geli doono, iyadoo dhankeedu waxa ay tilmaamtay kooxda Xisbullah inay sii wadi doonto dagaalka culus ay kula jirto Israa'iil. saacadii la soo dhaafay waxa ay dhowr gantaal ama sawaariikh ay Xisbullah ay ku weerartay saldhigyo ku yaala dhinaca Tel Aviv, inkastoo si rasmi ah aan loo xaqiijin khasaaraha hantiyadeed iyo mid nafeed haddii ay jirtoba oo ay gantaaladaasi ay gaarsiiyeen. waxaa aad u yar ama adagba in macluumaad rasmi ah laga helo gudaha Israa'iil marka ay timaado gantaalaha ka imaanaya dhinaca kooxda Xisbullah iyo kooxaha kale ee hubeysan sida Falastiiniyiinta iyo Xuuthiyiinta dalka Yemen ee ku dhacaya magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil, gaar ahaan magaalada Tel Aviv. khasaaraha ay geysteen maadaama xukuumaddu si aada ay u xakameysay warbaahintii ajaanibta ahayd iyo tii gudaha ahayd ee iyaduba ay lahayd, kuwaasi oo aan inta badan aanan ku sheegaynin dhacdooyinka rasmiga ah ee ka dhaca gudaha Israa'iil. daawadayaal waxaan halkaasi aan doonayaa inaan kusoo gabagabeeyo warbixino wixii xilligan ka taagnaa caalamka iyo sidoo kale guud ahaan bariga dhexe. tani kulanti dambe waa saaxiibkiinu idinkaga tegaya sida ay nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.